إنا لله وإنا إليه راجعون maanta ay taariikhdu tahay 24 December waxa garoonka aadan cadda airport laga soo dejiyay 12 dhalinyaro meydkooda kuwaas oo ay siday diyaaradda Air Force Qatar kuwaas oo ah dhalinyaradii dalkan 2 bilood ka hor looga qaaday tababar ciidan oo ay u fidinaysa dawladda Qatar meydadkan ayaa waxa siday diyaaradda Air Force Qatar oo ah diyaaradii ciidan ee siday meydka engineer Yarisow dhowr bilood ka hor ka soo degtay garoonka magaalada Muqdisho waxayna ku jireen meydadkaasi bacooyin waaweyn oo jinyeerale oo afka ka tolan waxaana markii dambe loo qaaday meydadkaasi ayadoon la ogolayn in ay arkaan waalidiintii dhalay ilmahaasi xarunta weyn ee xalane ee lama galaanka ee ku taala magaalada Muqdisho sidoo kale ila lagu kalsoon yahay ayaa si hoose iigu xog waramay waxayna ii sheegeen in dhalinyaradaasi ay u geeriyoodeen raashin sumaysan oo loo qaybiyay xero military oo ay kaga sugnaayeen wadanka Qatar qayba kamida waalidiintii dhalay caruurtii loo qaaday tababarka ay fidinayso dawladda Qatar oo lagu sheegay in lagu tababarayo dhalinyaradaasi qaarkoodna meydadkooda oo maanta laga soo dejiyay magaalada Muqdisho ayaa ii sheegay in markii ay ka tagayeen ay dhaheen la idinma ogolo taleefano ilaa inta aad tababarka ka soo dhamaysan doontaan halka dharka ay wataana laga reebay dharna lagu siiyay airportka gudihiisa arrintaas oo ay waalidiintu ii sheegeen in ay ka muujiyeen walaac shaki weyn iyo murugana ay ka qabeen markii ay baxayeen ilmahooda walow maanta qayba kamida shakigoodii uu soo baxay maadaama ay arkeen qayba kamida dhalinyaradaasi meydkooda oo si qarsoodiya looga soo dejinayo garoonka aadan cadda ee magaalada Muqdisho kadibna loo diiday dadkii ku baraarugay meydkaasi loona qaaday xarunta lama galaanka ee ku taala magaalada Muqdisho ee xalane saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya oo aan kula kulmay afaafka hore ee airportka aadan cadde irida laga galo ayaa ii xaqiijiyay in meydadkani laga keenay dalka Qatar ay yihiin dhalinyaradii 2 bilood ka hor laga qaaday caasimadda iyo gobolada dalka Soomaaliya loona qaaday tababar ay fidinayso dawladda Qatar iyo dawlado kale oo ka taageera dhismaha dalka Soomaaliya waxauna ii sheegay in meydadkaasi qaarkood ay yaalaan wali dalka Qatar qaarna la keenay dalka Soomaaliya ee Muqdisho halka kuwa kale kooma ku jira ay sababsadeen sun loogu daray raashin ay yaalaan isbitaalada waaweyn ee dalka Qatar haddaba muwaadin haddii uu ku soo gaaro muuqaalkan waxaan ka codsanayaa in aad iga gaarsiiso guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii dhalay dhalinyaradaasi oo qaarkood aan ka warqabin meydadka sida qarsoodiga ah looga soo dejiyo garoonka aadan cadde airport si ay uga raasadaan ilmahoodii xubnihii ku lugta lahaa dirista ciyaalkaasi loo qaaday dalka Qatar oo maalinba koox la keenaya magaalada Muqdisho ayagoo meyd ah kadibna loo ogolayn in ay dadkoodii fiirsadaan laguna xareynayo xarunta lama galaanka ee xalane Cabdi Xasan Xarago warbaahinta cadaaladda magaalada Muqdisho